السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنقش حق كنالك وان مدكوا بنانا سوبن وحموقاله هذا بسيدين ورايا وضنا إن شاء الله تعالى روشكو بيبيوضا عسان سو بدلين وبيلا ميدبكوضا عسان كيسو بدلين دليان كيان بارنيانا ayaa la sheegay in saliida aadka u badan ee ku daatay deegaano ku yaala Arctic ayaa la sheegay in deegaanka u geysatay waxyeelo aan la saadaalin karin. Saliidaasi waxay si gaar ah saameyn ugu geysataa webiyada halkaasi ku yaala. Mas'uuliyiinta Ruushka iyo kooxaha caalamiga ah ee arrimaha deegaanka ka shaqeeya waxay sheegeen saameynta saliida ka dhalatay ee sanadaha badan wax ka qabashadeeda lagu guul daraystay. adeega howlaha gurmada Ruushka ayaa haatan wada dadaalo aad u badan oo ay ku saliidaasi ay ku sheegayaan in ay ka timaaday shidaalada ama saliidaha qurmaya lagu shubayo saliidaha. haddaba adeega howlaha gurmadka Ruushka waxaan qabanaynaa saameynta deegaanka ayuu ee ka dhalatay deegaankani saliida iyo wasaqda deegaanka lagu sii daayo. ganacsiga gaarka loo leeyahay ee Ruushka mustaqbalka dhismaha iyo Ruushka qiimeynta Putin dhammaantood way saameyn karaan. laakiin sidee qiimeynta madaxweynaha Putin sameeyay oo ku sheegay isbedelada cimilada inay saameeyeen u geysanayaan ganacsiga gaarka loo leeyahay ee dhismaha mustaqbalka balse sida uu saameynayo ayaa la sheegay 29 May waxa qoraxday hanzaliid lagu ekaydiyo oo ku taalo gobolka Kherson ee dalka Ruushka ee deegaanka Siberia taasoo keentay 20,000 tan oo saliid ah inay webiyada ku dhacaan. muxuu yahay micnaha tacaalka ka dhashay kaydka Ruushka sidan ay u jecel yihiin maalka oo ay saliidan iyo arrimaheeda hanti ay u sii deyn waayeen. saliidda haanta ka qarxday haatan wadooyinka oo dhan durduray ayaa saacado gudahood ku galay webiyada Dalyanka iyo Ambariana. webiyadan waxay biyahooda ku shubeen badda webiyada casaanka isku bedelay. haddaba dusha sare ee webiyada ayaa haatan laga guraya saliidda dul saabeynaysa mashruuca korontada laga dhaliyay ku yaala Nordics ee ku yaala Siberia. waxay dadka siiyaan goobo ay warshado badan ku yaalaan oo laga saaro macdanta waxaana warshadaasi macdanta laga soo saaraa saami aad weyn u leh ninka Ruushka ugu taajirsan Vladimir Putin iyo maalqabeenka Ruushka ee loo dilay Drisbik. Ruushka uu dilay hogaamiyaha Daesh dagaalka internetka Ruushka iyo Ruushka armaha istaadaba waa maxay warbaahinta dawladda Ruushka waxa ay sheegtay saliidda webiyada ku dhagaatay waxay sheegeen in gaari 150 kilomitir isku wareega. Putin muxuu ugu carooday maamulka xaruntaasi korontada laga dhaliyo waxay ku dadaaliyaan sida ay masiibadaasi wax uga qaban lahaayeen. Ruushka oo diidan qorshaha nabadda ee Xalab iyadoo masiibadaasi dhibaatooyinka ka dhaysay laga guray gudiga baaritaanka Ruushka ayaa waxay bilaabeen baaritaan la xiriira waxa sababay in saliidaasi webiyada ku fatahdo. Moscow waxay ku baaqday khatarta aadka weyn ee soo saartay cimilada gobolkaasi in si degdeg ah wax looga qabto. maamulaha xarunta macdanta laga soo saaro VCG Satrodan ayaa xabsiga loo taxaabay iyadoo lagu soo yeeday inuu ku xadgudbo qodobka inuu deegaanka ilaaliyo iyadoo lagu soo oogay dacwad la xiriira qodobka ciqaabta dalka Ruushka qodobkiisa 246. khatarta ugu weyn ee dhibka lagala kulmay ayaa wuxuu yahay shaqaalaha gurmadka oo aad uga dhiban sidii dusha sare ee webiyada ay saliidda dul saabeynaysa uga soo ururin lahaayeen sawir-sooyaalka xiriirka Ruushka iyo Mareykanka. taladoodii waxaa la goobtay in masiibadu ka dhacday la geeyay qalab saliidaasi webiyada ku shubmay wax looga qabto si loo badbaadiyo saameynta ciidda iyo qorshaha deegaanka. wakaalada deegaanka Ruushka wuxuu sheegay waxay sheegtay wasaqda biyaha webiyada u geystay saliidda inay daatay xilligan. dhacdadan ayaa la aaminsan yahay inuu ahaa kii labaad ee ugu dhacay Ruushka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.